qalbigiinu yuusan murugoon ilaah waad rumaysan tihiin anigana i rumaysta guriga aabbahay wuxuu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaas ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiin sii diyaariyo oo haddaan tago oo meel idiin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygan idiin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan oo meeshaan tegayay jidkaba waad taqaaniin toomas ayaa ku yidhi sayidow ma naqaan meeshaad tegaysid ee sidaanaa ku naqaan jidka markaasaa ciise wuxuu toomas ku yidhi anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ku yimaado maahee haddaad i gaarateen aabbahayna waad garan lahaydeen hadda kadib waad garanaysaan waadna aragteen filibos baa ku yidhi sayidow aabbaha na tus wayna nagu filan yahay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ma intaas badan baan idinla joogay oo aanad i garanaynin filibosow kii arkay wuxuu arkay aabbaha sidee baad u leedahay aabbahana tus miyaadna rumaysan inaan aabbaha ku jiro aabbuhuna uu igu jiro erayadaan idinkula hadlayo anigu iskama hadlayo aabbahaas iigu jira ayaa shuquladiisa sameeya i rumaysta inaan aabbaha ku jiro oo aabbuhuna aniga igu jiro haddii kale shuqulada aawadood ii rumaysta runtii waxaan idinku leeyahay kii i rumaystaa shuquladaan sameeyo isna wuu samayn doonaa oo shuqulo kuwan ka waaweyna wuu samayn doonaa maxaa yeelay aabbaan u tegayaa oo wax alla waxaad magacayga ku weydiisataan waan samayn doonaa in aabbuhu ku ammaano wiilka haddii aad wax igu weydiisataan magacayga waan samayn doonaa haddii aad i jeceshihiin qaynuunadayda waad xajin doontaan aniguna aabbaan baryi doonaa isna wuxuu idin siin doonaa gargaaro kale inuu idinla jiri weligiin waxaa weeye ruuxa runta ah oo aanay dunidu qaadan karin waayo ma aragto garanna mayso idinkuse waad garanaysaan waayo wuu idinla jiraa wuuna idinku jiri doonaa idinkama tegi doonaa agoonnimo ee waan idiin imanayaa in yar dabadeed dunida i arki mayso mar dambe idinkuse waad arkaysaan waa noolahay taas aawadeed idinkuna waad noolaan doontaan maalintaas waxaad garan doontaan inaan aabbahay ku jiro idinna aad igu jirtaan anna aan idinku jiro kii qaynuunadayda haysta oo xajiya waa kaas kani jecelna aabbahay waa jeclaan doonaa anna waan jeclaan doonaa waana isu muujin doonaa isaga yudas iskariyood ma aha ayaa ku yidhi isaga sayidow maxaa dhacay oo annagaad isugu kala muujin doontaa dunidana aadan iskugu muujin doonin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi haddii nin i jecel yahay erayay wuu xajin doonaa aabbahayna waa jeclaan doonaa oo waan u iman doonaa waanala joogi doonaa kii aani jeclayn eraygayga ma xajiyo eraygaad maqlaysaanna kayga ma aha laakiin waxaa leh aabbaha isoo diray waxyaalahaas ayaan idinkula hadlay intaan idinla joogay laakiin gargaaraha ruuxa quduuska ah oo aabbuhu ku soo diri doono magacayga wax kasta ayuu idin bari doonaa wuxuuna idin xusuusin doonaa wax kasta oo aan idinku idhi nabad baan idinka tegayaa nabaddaydan waan idin siinayaa sida dunidu u siiso anigu idiin siin maayo qalbigiinu yuusan murugoon yuusanna baqin waad maqasheen inaan idinku idhi waan tegayaa waanan idiin imaanayaa haddaad i jeclaateen waad farxi lahaydeen waayo aabbahaan u tegayaa maxaa yeelay aabbuhu waa iga weyn yahay haatan waxaan idinku sheegay intaanay dhicin in markay dhacaan aad rumaysataan mar dambe wax badan idinlama sii hadli doono maxaa yeelay kan madaxda dunida ah wuu imanayaa isaguna waxba iguma laha
laakiin tani waa in dunidu ku garato inaan aabbaha jeclahay iyo inaan sameeyo sida aabbuhu igu amray. kaca aynu meeshan ka